السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوع دوا وحا هالمر lagu baraarugay xulufadii Imaaraadka Sacuudiga ahaa oo khilaaf ka dhex abuurmay labadan dal markii hore isku xulufaysan jiray dalal muslimiin oo dhibaateeyaan Yemen oo kale aan wada naqaan dal sub u dhisnaa Imaaraadka Sacuudiga militariga galay oo burburiyeen Turkiga oo 2016 inqilaabkii lagu weynay ku lahaayeen Imaaraadka Sacuudiga Masar oo Maxamed Mursi karideen labadan dal xulufaad oo adag bay ahaan jireen haddaba maxay khilaafkan soo dhex galay intuu leeyahay muuqaalkan inta ku jirnaa kaga doona fadlan nooc cusub subscribe saar hanay loobna muuqaalka like garayso daawasho wacan اسبوع soo dhaafnay Imaaraadka Sacuudiga waxa soo kala dhaxgalay khilaaf aad u xoogan oo inaan hore u arag waxayna isku haysteen yareynta wax soo saarka shidaalka labadan dal wasiiradooda tamarta ayaa mar sheegay warbaahinta la hadleen in wada hadal khilaafkooda ku xalin lahaayeen uu fashilmay khilaafkooda marka wuxuu keeni karaa in ururka ay ku midaysan yihiin wadamada gaasta soo saara oo OPEC+ lagu magacaabo burbur hadii uu midkood ka baxo qaabkii Qatar oo kale uga baxday oo hadii labadooda midkood ama labadooduba ka baxaan ururkan OPEC+ lagu magacaabo waxa bilaabmi kareen sicirka shidaalka ay ku tartamaan dhibaato badan soo gaaray dhaqaalaha caalamka maalintii xadda soo dhaafnay Sacuudigu wuxuu joojiyay dhammaan duulimaadadii ka imaanay Imaaraadka waxaana ku sifeeyeen waxa ka jira cudurka corona Imaaraadku kaliya waxa diyaaradooda mamnuucan ee soo kale Vietnam iyo Ethiopia way mamnuucan labadan dal ay garab dhigan Imaaraadka oo caafimaadkiisu tayo leeyahay haddaba khilaafka Imaaraadka Sacuudigu ma waxa dablooday ee wax soo jiray laakiin uu qarxay waxyaabo badan isku khilaafeen ay jiray waxaana kamid ahaa 2015 markii militarigooda labadan dalba ay Yemen galeen oo Yemen oo dhisan sidoo burburiyeen Sacuudigu isla maalinkii koowaad Yemen galeen ba waxa ku dhawaaqeen inay taageero muujin doonaan madaxweynaha waqtigaas Yemen Cabdirabbi Mansuur cid walba ka soo horjeeda Cabdirabbi Mansuurna ay la dagaalami doonaan waxa gooni goosadana ma aqbali doonaa ay dhahan laakiin madaxda Imaaraadka oo shartooda cidna ka qarsooneen waxay taageereen iyaguna koox ka dagaalanta koonfurta Yemen oo gooni goosada oo rabteen Yemen ka go'aan kooxdan oo taageero kelisay Imaaraadka ayaa dhowr jeer dagaal kaga hortimid xukuumadii sharciga ahayd Yemen ee la aqoonsana khilaafkooda soo kale wuxuu ahaa Iran oo markii hore labadoodan dal u arki jireen cadawgooda koobaad ee gobolka ku yaala ayaa bishii July 2019 Imaaraadku khiyaamay Sacuudiga oo uga baxan cadaawadii Iran u qabi jireen waxaana wafdu u direen dhankaas Iran oo heshiis dhaqaale ay soo saxaadeen 19 bilyan oo dollarka Mareykanka oo Iran iyo Imaaraadka dhexmari doono Sacuudiguna wuxuu ku baraarugay iyagoo banaan cillad taagan oo khilaafkooda dhanka dalxiiska xataa uu galay oo dhaxal sugaa Sacuudiga Maxamed bin Salman la yiraahdo wuxuu furay magaalada New York la yiraahdo badcas dhacdo oo loogu talagalay kaliya dalxiiska si ay ula tartanto Dubai iyo Abu Dhabi haddaba khilaafka labadan dawladood ee muslimka soo dhaxgalay inaka ka muslim ahaan muxuu faa'iido u leeyahay qaabkeese aynu qaadanayna horta marka hore labadan dal waa laba dal oo muslima bariga dhaxadhaca dhibaato walba soo dhex marta ama soo kala gaadha inaka inuu soo gaadhi doonto waa talabaad khilaafka labadan dawladood marka si kala loo eego waxa nafis u tahay dawladihii islaamka ahaa ay ka dhici jirtay dimuqraadiyadda xor sida Turkiga oo kale iyo Masar oo dimuqraadiyad xor ka dhacday oo Maxamed Mursi la doortay laakiin ay inqilaabeen wadamo badan oo islaam ah ayaa ka nafisi doona faragelintoodii oo dhibaato badan oo caalamul islaam ay ku hayeen labadan dal oo xulufaysanaya ayaa jiray oo xataa heer ay gaareen in Israa'iil xiriir la sameystaan marka maanta in labadooda khilaaf soo kala dhaxgal oo iyaga isku mashquulaan si marka loo eego waa arrin fiican oo caalamul islaam ay ka mashquulayaan haddaba fursada u waaweyn waxa haysta dalka Turkiga oo shalay toole markii labadan dal xulufo ahaayeen 2016 lagu weynay ku lahaayeen inay Turkiga inqilaab ka fuliyaan marka maanta markii labadooda khilaaf ka dhex abuurmay uu ka faa'iideysan karaan iyagoo labadoodaba xiriir la sameeyay ama midkood xiriir la sameeyay oo leeshiinaya ama Imaaraadka Sacuudiga laftirkooda ayaaba u kala tartami doona dhanka Turkiga sababtoo ah wadan muslima oo weyn oo military ahaan iyo dhaqaale ahaan ballaaran labadooda midkood la xulufooba Turkigana uu ka awood badan doona ka kale marka fursada weyn waxa haysta dalka Turkiga oo shalay markii raggalbeedku isku dayeen inay dhibaateeyaan wadamada ay u soo mari jireen Carabta number 2 ah waxa kamid ah Sacuudiga iyo Imaaraadka marka Turkigu maanta inay Sacuudiga iyo Imaaraadka leeshiyaan ama midkood leeshiyaan waxa iska soo xiri doonaan albaab weyn oo siyaasadeed oo kaga furna dhanka Carabaha waxaana soo jeesan doonaan si iskaga dhiciyaan raggalbeedka khilaafka labadan dal inuu la socon doona mana rajaynayna marnaba inuu tartan military dhexmaro sababtoo waa laba dal oo muslima fikirkaaga hoosta ugu reeb hadda la socotay khilaafkoodan iyo hadii kale muuqaalkan xigana waxaan kaga doonaa magaalada Samarqand ciidamada muslimiinta waqtigii Umar bin Abdul Aziz qaabka u furteen qaab urnaantii aad u cajiib weeyaan insha Allah muuqaalkaasna la soco muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay fadlan hadda nagu cusubtay subscribe saar assalamu alaykum